بسم الله الرحمن الرحيم حرونتا المباريستا aqoonta dhaqanka ee carre edeg arintaasi miyay ku muuqatay way jirtaa ha laakiin ilaa imika intaynu ka hadalnaa maaha qaybta sunta ah geedka ay cuni waayaan geedkaasi maaha geed manfac bilaadanka u leh waa formula guud oo Soomaalidu ay taqaanay siiba geel ayaa ugu badan oo kale mesela xoolaha dhaqdo geel ugu badan Soomaa geedka uu goosan waayo geedkaasi sidiisa ayaa la iskaga ilaaliyaa oo waxa weeye geedkaas waa khatar markii imaka day aqoontii ay horumartay laabka iyo waxaan sameeynay physical properties iyo chemical properties ay soo saariyeen sax qolada botanidu ay soo saariyeen wuxuu noqday geedka maadaama xoolahaas ay goosan waayeen exactly waxa weeyaan geedkaasi geed kale waxa faa'iido male laba mid buu noqonayaa in uu noqdo sun oo de waxyaalo uu keenayo iyo inuu qaab kale chemical oo kale ah samaynayo oo de meel kale ay manfac ku yeelanaya laakiin xaqii bilaadanki de loo isticmaalayo bilaadanka iyo xoolahana de experiment lagu ma qaado oo lagu tijaabiyo wixii xataa la tijaabinayo dadku kuma tijaabin jirin laakiin se qaab noocaas oo kale ah iyo qaab kale oo Jaabir ibn Hayyan iyo culmadii hore ee kiimiska ah aqoonta islaamkana inta badan alkaliga iyo ragii soo saaray waxyaalaha badan ee terminology-ga ee science ku isticmaalo ama formology ku isticmaalo inta ugu badan 40% buu leeyahay ninka Jaabir ibn Hayyan la yiraahdo oo waqtiyadii Harun Rashid iyo ayuu noolaa inta badan isaga ayaa laga soo qaaday baagtiisa barjiray wax kale oo kamid ah Ibn Arabi ninkii loo jiray Ibn Sina kamid ah ragaas oo kale iyaguna formulooyinka ay soo qaateen ayay qaab diiniyan oo dhaqana ay Soomaalidu haysay marka Soomaalidu kuwaas la xiriirisay arinta halkaas oo xiriir ka dhaxeeyay mise Soomaalidu waxay lahayd dhaqan gaar ah oo ay ku garanayso oo ka horeeya Carabta Soomaalidu laba dhaqan bay haysay ay haysataa oo dhinaca dhirta oo xagga dhirta ah ay haysatay marka hore wax jira waxyaalo hore ay u dhaxashay oo waqtiyada islaamka oo ka horeeyay dadkii ku noolaa halkani waxyaalaha ka dhaxleen ayaa jira oo waxa la yiraahdaa faraaci iyo waxba meesha dhulka tagi jirtay oo aseertoodii heligraafiyadoodii buuraha iyo waxba ku aragnaa buugtii la qoray iyo scriptskii la qoray berdawid baa Soomaaliga la qoray beriga hore wax lagu qori jiray waxyaalo kale lagu qori jiray luqada carabiga iyo luqada carabiga iyo luqooyin kale waxba lagu qori jiray laakiin se waxa jiray dadku Soomaalidu badankoodu waxa weyn cilmi dhagaha ay aad ugu wanaagsan yihiin oo maadaama ayna scripts lahayn wax cilmiga dhagaha ayaa jiil la jiil iska soo tajarrubna way sameeyeen talabaadna waa tajarrubka ay sameeyeen ta saddexaad waxa hogaaminaysa Soomaalida culumada diineed culumada diineed source ay soo qaadanayaan waxay xadaaradii islaamka ay ka soo qaadanayeen oo ninkana ku sheegay Jaabir ibn Hayyan oo kale iyo Ibn Arabi iyo Ibn Sina iyo qolooyinkaasi Umar al-Khayyam rag badan oo noocaas ah oo ay ka soo qaateen baa jiro oo buugtii ay qoreen ay yaalaan af Carabi ku qoran marka formulooyinkii ku qornaa meesha ay culimadii hogaamin jirtay dadkeen halkaas ayaa asaas u ah oo systematic ka soo qaaday